dabayaaqadii 2011 waxaan ka anbabaxay caasimadda waddanka Ingiriiska ee London. waxaanu safarkaygu ku wajahnaa Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn oo markaasi howlo badan looga diyaar garoobayay. sidoo kale isla xilligaasi waxaa aad loo rajaynayay shacabweynaha deegaanadaasi ee qurba joogta ah intooda awoodi karaysa inay iska soo xaadiriyaan gudaha deegaanadaasi oo lagu ballansanaa. Diyaaradii Royal Carolina oo ku socota Dubai. Diyaaradaha waddanka Qaladana waxay gaari doonaan 3 saacadood. waa xilliga ay tahay 9:25 daqiiqo oo habeenimo. dhowr saacadood kadib waxaan soo gaaray magaalada ganacsiga ee Dubai, waxaana ku hakaday 7 ku dhowaad. waxaana ku sugayay diyaaradii aan u raaci lahaa Soomaaliya oo magaceeduna ahaa African Express. inkastoo xilligaasi ay duulimaadyada Soomaaliya ciriiri ahaayeen, halka aniga wax waliba ay hagaageen, misena waxaan arkayay dad markaasi rafaadsanaa oo duulimaadyadoodiina dib loo dhigay. sidoo kale isla magaaladaasi Dubai waxaan ku kulannay Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan iyo Muuse Sheekh Cabdi oo iyaguna dhanka Maraykanka ka yimid. dhammaantayana waxaanu noqonnay isku diyaarad, waxaanuna ka duulnay magaalada Dubai. muddo dhowr saacadood ah ayaanuna hawada ku sii jirnay. kama dambaystiina waxaanu si nabad ah uga degnay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. saatee waxay noogu yaabadnay markii ay noo yimaadeen qoladii maamulka garoonka diyaaraduhu, laguna yidhaahdeen diyaaraddu ma ay soo qaadin shadadihii rakaabka. kadibna waxay nagu qanciyeen annaga ayaa inoo soo xidhiidhi doonaa xilliga ayna soo gaadhaan shadadihii. dabadeedna xaalkii wuxuu ka badan waayey inaannu allana tala saaranno, iyagana aanu ka warsugno. markii aanu ka soo dhammaanay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo, dabadeedna waxaanu cagta saarnay dhabbadii aadaysay caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle. hase haatee intii aanu jidkaasi sii haynay, mar keliya ayaanu ka war helay inuu banjaray mid ka mid ah taayirada gaadhiga. dabadeedna gaadhigii waa la joojiyey, waxaana noqotay in taayirka laga beddelo. intii hawshaasi lagu jirayna qolyihii qurbajoogka ahaa dubbo waxaa maankooda ku soo dhacay neecawda saafiga ah ee dhacaysay iyo muuqaaladii dhulka ay soo dhex marayeen, iyo weliba nimcada uu Rabbi dhigay meelaha qaarkood.
waxaanu goor habeennimo ah soo gaadhnay caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle kadibna waxaanu ku degnay hoteelka caanka ah ee Cabdigurey Plaza Hotel oo ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Buuhoodle inta badanna waxaa soo tilmaansada qurba joogta haddaba intii aanu ku sugnayn magaalada Buuhoodle waxaanu soo booqannay goobo badan sida mid ka mid ah riigagga ceelasha qoda iyo gaadiid halkaasi ku wehelinayay waxa kale oo aanu soo marnay ceel biyood uu matoor yari ku xidhnaa inkastoo xilligaasi ay deegaanka ka jireen oo aado laga soo maleegayay dhinaca maamul goboleedka Somaliland misana isla goobtaasi waxaanu kula kulannay koox dhalinyaro ah oo hubaysan waana kan wariyay Axmed Nadiif oo waraysanaya magacaaga ايش يا صار قرمه ساكت قولي ما تغنى نوعزه هكا قرنسه وان قرتي maxaa ku kali faqreena qaad waxaa yeesheen qashtan waa gartay misleedahay adiga iyo ciidamada wad ku guuleysan kartaan inaad iska celisaan cadowga insha Allah waan ku guuleysanaa way ay tahay waxaan ku guuleysanaa dadkayga lagu haystaa dadkayga lagu haystaa ciideedan isfahanayna jaayna waan gartay waa markii hore soo qaadatay miyamka markii hore soo qaadatay waan gartay waxaad soo jeedinaysaa ciidamada idinka soo horjeeda waxaad leedahay naga baxa waxaad leedahay isku joogo cudud baan idinku saarnaa ma ana waxaan leenahay haddii danaysan ay doonayaan inay dadkooda dalaan ay ku dhigtaan inay baxaan haddii kalena maxay ahayd lagu cusri ma santa magacaaga Cabdiqani wala Cabdiqani magacii qorigan waa aak waan gartay gormada ka timi anuu halka waxaan ilaahay tirtibaniye habeen ma jiro maxaad halkan u timi halkan waxaan u yimid xaalad dagaal waan gartay yalla dagaalamada xaalad dagaalamaya nimanka Soomaali diidka halka ka soo jeeda waan gartay waa markii hore soo qaadatay miyamka ma hadeer tan hum baa igu soo kaliftay inaan qaato waan gartay masalada maanta waa markii ugu dambeysay la kala bixi lahaa maanta aad bay u gacan sareynaa aad bay ugu guuleysanaynaa waan gartay maxaad isla u jeedinaysaa nimankaas iyaga ma inay dalka ka baxaan ma inaad leedahay isku joogo cudud baan idinkaga saarana ana waxaan leeyahay cudud baan idinkaga saarana iska joogo xamaasada magacaaga Yusuf adigu inta oo wad ku badan tahay waxaad wadataa qoriga lagu dagaalami jiray sidii bal marka hore shucuurtaada waxa weeye qol ilaa inta nimanka laga saarayo dalka wala sidanayaa in la sii kordhin mooyaan lama yaleen waa gatay xagaad imika adigu ciidanka kaga soo birtay yani ma ciidan kalaad ahayd mise dadkii deegaanka hubaysan baa tahay waan gartay maxaa loo isticmaalaa bahashan iyo alaabtan iyo dabcan kana waa aaka waa garan karaa laakiin tan yani oo kale waa ku tigni dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay sidii kubad aanan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhulay hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay sidii kubad aan dhalay oo kala dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhulay man dunida lagu nool yugu qiima dheer yahay gaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane man dunida lagu nool yugu qiima dheer yahay
دحن برفايو لما وقت مع كل كيدي ربي باي سوق ديلي تري عميلا ديفتي تايهي جلي عامر قولا كما درقاياني دوني قعن كذا لقا غيران شلالو ديني الحنسو بقى دي وكرور دي لدي وجيركا دفتا حبكتا لقى سوكريو عميرا دومانتا من دمي كما دور سنكرو دوتا دي بديدي دوني قعن كذا لقى خلان شينا لو ديني الحنسو بقى دي وكرور دي لدي وجيركا دلتا حبكتا لقى سوكريو عميرا غادو مانتا نندا دمي كما تور سانكرو دوتا دي بديدي إحديثان كونو لهنيا جيرقو الليل ويه قلنتان وحن برايا تغمدو دي شرفتي لو يحدو منيا خان دافالي يا غالي سقران كادلي كاچيرا تيبالو تاغا حديثان كونو لا هيا جيرغو لايدوي دلنتان وحن برايا تغمدوي شرفتي لو يحب منيا دافالي يا غالي بسكران كادلي كاچيرا تيبالو تاغا دقن كيو هيدا وانشلهاي وابقاين ديغاي وحلقة دحلي دين كيدا ما دلنتي دحل كيدا يوان سيداني قدماناي دحمدي دس سوغان تايو دابتي قبقا دقن كيو هيدا وانشلهاي وابقاين ديغاي وحلقة دحلي دين كيدا ما